السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان عصب waxaynu ku baranaynaa CSV fileska waxay yihiin sida loo akhriyo iyo sida loo qoro. Marka CSV waxay u taagan tahay comma separated values. Marka waa file, waa text file aad notepad ku furi karto matalan oo ah delimited text. Delimited ka waan usoo noqon doonaa. Marka waa file that uses comma ayuu isticmaalaa to separate values so uu markaa u separate gareeyo ama u kala qaybiyo fields-ka ama values-ka. Marka koomahaas ayaa loo yaqaanaa delimiter. Each line of the file is a data record. Marka line kasta waa record, waa sidii Excel oo kale aan arki doonaa. Each record consists of one or more fields. Record kastana wuxuu ka kooban yahay markaa fields. Fields-ka waxaa loo dhexaysiiyey comma, separated by comma. Marka CSV-ga iyo JSON aynu baran doono aad baa loo isticmaalaa. Marka waa common data exchange format, waa format loo isticmaalo markaa datada kambaniyada isu dirayaan. Marka waa that's widely supported by consumer, business iyo scientific applications. Marka website-yadu aad bay u isticmaalaan markay data isu dirayaan, business-ka sidoo kale, scientific research-ga sidoo kale, data science-ka aad baa loo isticmaalaa CSV. Marka waa muhiim in la fahmo CSV filesku sida loo isticmaalo. haddaynu markaa yara sharaxno CSV-gu waa textga fileka aynu arkayno. wuxuu ka kooban yahay header, waa lineka ugu horeeya. dusha marka wuxuu ka kooban yahay columns. ID-gu waa column, name-ku waa column, city waa column, email waa column. wuxuu ka kooban yahay rows, oo line kasta waa record, waana a row weeyaan. waxaana fieldska loo dhexaysiiyey comma. Commahaas ayaa marka la dhahaa delimiter. khasab ma inuu comma noqdo. iminka waxaa la isticmaalaa matalan tab baa la isticmaalaa, wax kale aad isticmaali kartaa haddaad rabto, hashtag baad isticmaali kartaa, laakiinse inta badan waxaa la isticmaalaa comma, semicolon iyo tab. haddana waxaynu arkaynaa tusaalayaal ku saabsan sida loo akhriyo CSV-ga loona qoro adoo isticmaalaya Python. intaynaan u gudbin qaybta programmingka waxaa muhiima inaynu fahanno faraqa u dhexeeya Excel iyo CSV. hadda halkan waxaan ku haystaa Excel file. Excelkaas haddaan isdhaho notepad ku fur, edit in notepad, waxaad arkaysaa inayna akhrin karin. marka waa binary file baan lahaa Excelkan, laakiinse Excelkan ayaan u bedeli karaa CSV intaan furo. marka Excelkii waa kan filekii. Excelka horta farqa u dhexeeya Excelka oo kale halka waxaan ka dhigi karaa iminka bold baan ka dhigi karaa, formatkan bedeli karaa, laakiinse CSV-ga waxaasoo dhan kuma samayn karno. haddii marka aan rabo inaan filekan u bedelo CSV, waxaan odhanayaa save as. waxaan dooranayaa markaa CSV, comma delimited CSV. halkaasaad ku aragtaan. marka haddaan ku dhufto fileka wuxuu noqonayaa CSV. marka haddaynu dhahno save, close, halka waxaan ku haysanaa isla fileka oo CSV ah. marka iminka haddaan ku furo notepad, waxaad arkaysaa inaan filekii akhrin karo oo text file noqday. filekan ayaynu markaa akhrin doonaa inagoo isticmaalayna Python. filekan aan isticmaalayo ee CSV-ga ah waxaad kasoo download garaysan kartaan GitHub-ka. linkiga waxaan dhigi doonaa description-ka videoga, markaa halkaa kasoo dejista. Pythonka wuxuu ku fiican yahay, waxaa jira module kuu fududaynaya inaad akhriso ood qorto CSV. marka waxaa la inaan import garaynaa CSV. kabacdi filekii baynu furaynaa with open. fileka waxaynu u bixinay employees CSV. modeku waa read, baynu akhriynaa fileka. waxaad doontaad u bixin kartaa file ama CSV file. kabacdi filekii ayaan akhrinaynaa variable reader. waxaad doontaad u bixin kartaa alex reader, baynu soo bixinaynaa. halkan marka waa inaad maxaa muhiim inaan markaynu akrinayno fileka waxaan isticmaalaynaa modulekii aan soo import garaynay CSV-ga ahaa. CSV dot okay. hadda marka fileka waanu haysanaa. waxaan samaynaa for loop, for ama for row. waxaad doontaad u bixin kartaa variableka, let's say for row, maadaama aynu rowska print garaynayno. print row. okay. haddeen run garayna hadda
okay halkan wuxuu leeyahay khalad expected at least one argument got 0 halkan markaa readerka waa inaan u sheegnaa maxaynu akhrinaynaa inaan dhahaa csv fileka soo akhri csv file okay mar labaad marran odhanaynaa waxaad aragtaan markaa filekii ayuu akhriyey waxaa idiin muuqata halkan waxaad ka aragtaan marka wuxuu ka dhigay list okay marka rowskii ama recordkii oo listiya ayuu akhriyey haddii aan rabo matalan inaan print gareeyo magaca keliya waxaan odhan karaa maadaama uu list yahay indexkii baan isticmaali karnaa waxaan odhan karnaa waxaad print garaysaa indexka numberku waa 0 marka magacu waa index 1 taan run dhahano wuxuu noo soo qaadayaa magacyada keliya haddaynu rabno magaca iyo emailka waxaynu odhan karnaa comma row 2 halkan waan khalday number index 2 waa cityga haddaynu rabno emailka waa inaan ka dhignaa index 3 wuxuuna siinayaa magacii iyo emailkii muhiimadda inaad fahamtaan waxa weeyaan waxaad markaynu akhrino filekii wuxuu u bedelayaa list ayuu bedelayaa marka listigaas ayaynu markaa akhrinaynaa sidaynu hore usoo baray listiga markaa wixii intaa ka dambeeya adigoo lista haysta waxaad isticmaali kartaa macluumaadka aynu kusoo barannay videogii ka hadlayay listiga talabaad ee muhiima inaynu fahanno waxa weeyaan haddii fileka aad haysato aanu ahayn semicolon si aad u isticmaalaysaa marka filekii csv-ga haddaynu hadda furno delimiterkeenu waxaynu nidhi waa comma haddaynu bedelno semicolon marka delimiterkeenu hadda waa semicolon meesha marka hore uu ka ahaa comma haddaan save garayo control s okay filekii marka inaan akhriyaan doonayaa hadda waa inaan u sheegaa delimiterka hadda halkan markii hore delimiterka mayna sheegin marka defaultigu waa comma hadda laakiinse haddaan akhrino haddaan run dhaho iminka error baa soo baxaya okay marka waa inaynu delimiterkii u sheegnaa waxaan odhanaynaa halkan comma delimiterku waa semicolon haddaan hadda run dhahno programku u shaqaynaya hadduu tab yahay matalan delimiterku waxaad odhanaysaa \t oonu soo barannay oo tab ah isla markaa uu kuu shaqaynaya delimiterkaas marka waa muhiim waxaa kaloo muhiima iyana inaad ogaataan marmar ayaa fileka wuxuu wadan karaa spaces haddii aynu halkan hadda filekii ku noqonno marmar magacii ayaa space wadan kara halkan oo kale haddaynu dhahno halkan space ku darno okay haddii hadda spacekaas aan save garayno oon run dhahno waxaynu samaynaynaa rowga caadi ahaan rowgaynu printer garaynaynaa si aad u aragtaan waxaad arkaysaa marka magacyadii aynu space gelinay space bay wataan halka waxaad ku aragtaa spaceyadii haddaynu rabno inaan ka saarno waxaanu isticmaalaynaa argument isna kale waxaan odhanaynaa skip initial spaces is true taa haddaynu dhahno marka spaceyada wuu ka saaraya taan dib u ran garayno spaceyada wuu ka saaray actually wuxuu ka saarayaa spaceka hore ayuu ka saarayaa marka inta badan xagga hore spaceka in laga saarayaa muhiima xagga dambe dhib ma leh marka spacekii xaggan hore ku yaalay uu ka saaray haddii aad space ku aragto csv-ga waxaad isticmaali kartaa argumentkaas skip initial space sidaan hore usoo aragnay marka readerku wuxuu ina siinayaa list buu ina siinaya haddaynu rabno dictionary waxaanu isticmaalaynaa dict reader marka dictionary ayuu ina siinayaa meesha uu listka hore inaga siinayay dict readerku waa dictionary ayuu ina siinaya marka haddaynu hadda run dhahno waxaa inoo soo baxaya dictionary idgii waa key numberkii nameka waa key iyo magacii marka haddaan rabno magacyada keliya inaynu hadda print garayno waxaan odhanaynaa print name magacyada keliya inoo print garaynayaa haddaynu rabno email
okay marka marmar waxaa ka fudud inaad isticmaasho dictionary readerka meeshaad ka isticmaali lahayd readerka caadiga ah oo ku siinaya listiga okay haddana waxaan baranaynaa marka sida faylka loo sameeyo waxaynu baranay sida loo akhriyo kana aynu comment garaynaynaa waxaan odhanaynaa marka with open faylka waxaan u bixinaynaa matalan waxay doonaan u bixin karnaa let's say faylkanu samaynayna weeyaan waxaa muhiim inaan dhahno markaa w oo right ah meesha hore reader ka ahaa waxaan odhanaynaa marka writer aynu bixinayn laakiin waxaad doontaad u bixin kartaa is csv dot writer faylka magaciisii faylka aan wax ku qorayno markaa waa file hadee doono csv file baan ka dhigan karnaa laakiin iminka file baan u bixiyey file kabacdi markaa writerkan hadda ayaynu wax ku qoraynaa writer dot write row wuxuu u baahan yahay list ayuu u baahan yahay ardayn list baynu samaysanaynaa matalan waxaan odhanaynaa ka ugu horeeya waa name age oo kale rowgii ugu hore halkaa ku qornay hadaynu isaga un soo koobiyeyno aan dhahno haddana write row namekan dhahno axmed age 21 deeqa age 20 muhiimaddu waxa weeyaan write row markaynu dhahno gudaha waa inaynu list gelinaa listigaas ayaa markaa inoo samaynaya filekii haddaan dhahdo run save run wuxuu inoo sameeyey file persons haddaan filekaa tago waxaa ku jira magacii rowgii ugu horreeyay oo ah headerkii kabacdina valueskii halkan waxaad ku aragtaan markaa space ayuu geliyey spaceka haddaynu rabno in ka saarno waxaynu ku noqonaynaa filekii halkan ayaynu odhanaynaa markaa w kadib waxaan odhanaynaa new line empty ka dhig mar labaad run haddaan dhaho open oo kaa filekinu akhri haddaynu filekii inaynu akhrino markaas sidaynu hore usoo barannay with openkii baynu isticmaalaynaa kan haddaan commentiga ka saaro oon dhahno with open okay waxaad arkaysaan marka fileka intayna halkaa sharaxin filekii haddaynu ku qorno delimiterku waa comma waxa weeyaan markaa delimiterka defaultigiisu waa comma haddii aynu rabno marka delimiterka inaynu bedelno halkan markaynu qorayno fileka aan odhanaynaa delimiterka waxaad ka dhigtaa matalan tab ka dhig okay save run hadaynu ku noqono waxaad arkaysaa tab baa u dhexeeya hadda delimiterkeenu waa tab hadaynu dhahno waxaad ka dhigtaa semicolon ayuu ka dhigay hadaynu marka tabkii ku noqono si aad u aragtaan in tabka la akhrin karo tab ayaynu ka dhigaynaa save run filekeenu marka waa tab ayaan u samaynay delimiterka filekaas ayaan rabnay inaan akhrino waxaan odhanaynaa employee waxaan u bixinay persons dot csv delimiterkeenu waxa weeyaan backslash t waxaan rabnaa inaanu berino rowsko dhan baynu printer garaynaynaa dictionary ahaan baynu hadda u akhrinaynaa markaa maadaama aynu isticmaalayno dict reader waxaan qalday fileka magaciisa waa person dot csv mar labaad aynu run dhahno filekii oo naga akhrina isagoo dictionary ah marka waxaan baranay sida fileka loo sameeyo iyo sida loo akhriyo labadiiba ayaynu halkan ku samaynay wakaa codeka marka qaybta waxaynu samaynay filekii qaybtanna filekii aynu akhrinay waxaa marmar laga yaabaa inaad haysato list ama nested list marka waa listi ka kooban listiya kale halkan waxaynu ku haysanaa matalan listkaas waxaa ku dhex jira laba list ayaa ku dhex jira marka waxaa la dhahaa nested list isaan hore usoo barannay ama two dimensional list kan waxaa la marka outer list kuwana waa inner lists
wuxuu ka kooban yahay headerkii number first name last name iyo rowskii hadaynu markaa rabno inaan listigan fileka u bedelo inta kaloo dhan waa sidaynu hore usoo baranay waxaa keliyaad ka bedelaysaa halkaas waxaad oranaysaa file waxaad oranaysaa writer rows marka waxaan soo baranay inaan dhahno writer.write row hadda waxaad oranaysaa writer.write rows marka write rowska halkaas waa inaad list nested list waa inaad gelisaa hadaynu hadda run dhahan wuxuu inoo sameynayaa file la dhaho employee horeynu haysanay waxaynu ka dhigaynaa matalan users hadaynu iska dhahno matalan users.csv hadaynu run dhahno wuxuu inoo sameeyey users.csv oo ka kooban magacyadaas marka waxaa muhiim inaad isticmaashaan markaad list haysataan waxaad oranaysaan write rows haddii aynu haysano dictionary oon markaa rabno dictionaryga inaynu csv u bedelno isagana habkan aan isticmaalaynaa markaa marka hore field nameska ayaan samaysanaynaa oo ah headerkii hadhowto marka waxaa muhiima hadhowto dictionary marka qorayno field nameskaas iyo keyskan inay isku mid yihiin hadda employee name department birth month intaasoo dhan waa wada keyskii dictionaryga hadhowtan wuxuu noqonayaa csv headerkii kabacdi waxaan oranaynaa dict writer csv filekii iyo field nameskii aan halkan kusoo samaysanay oo ah hadhowto headerkii marka field nameskii waanu samaysanay inta kale waa markaa writer.writer marka waxaan oranaynaa writer.write header marka hore headerkii ayaynu samaysanaynaa kabacdi marka ayaynu dictionarygii filekii ku save garaynaynaa waxaa muhiim inaad fahantaan halkii marka hore aan list ka haysanay halka waxaynu ka haysanaa dictionarygaas oo ka kooban key iyo value key value marka key and value wana isku mid noqdaan halkana sidoo kale marka wuxuu inoo sameynayaa csv ka kooban 3 row ka ugu horeeya waa headerkii labada kalena marka waa rowskii haddaan run dhahno wuxuu inoo sameeyaa employee file csv2 oo kaas employee name department kabacdina markaa csv ay inoo sameeyey marka halkaa waxaynu ku baranay csvga sida loo qoro adoo isticmaalaya ama list ama dictionary iyo sida loo akhriyo labadaba waxaa la gaaray waqtigii challenge-ga waxaynu u baahannahay inaynu develop an application that lets users enter the first name last name and telephone number of different individuals marka waxaan while loop aynu isticmaalaynaa waxaynu weydiinaynaa qofka inuu geliyo telephone number ama first name last name iyo telephone number kabacdi informationkaas ayaan ku save garaynaynaa csv file the information should be stored in a csv file you can use either list or dictionary to collect the info marka aday kugu xidhan tahay waxaad isticmaali kartaa list ama dictionary markaad macluumaadka markaa ururinayso marka intaad videoga joojisaan isku daya inaad samaysaan good luck okay anigu waxaan go'aansaday inaan isticmaalo list waxaan u bixinaynaa friends list marka friend listiga hadhowta halkan aan ku qoran doonaa list hadaynu halkan u bedelno list halka waa empty waxaan gelinaynaa headerkii waxaan oranaynaa friends append marka listigii waxaan dhex gelinayaa marka headerkii oo ah waxaynu nidhi first name waxaa muhiim inaad fahamtaan halkan waa list aan dhex geliyey okay kabacdi while arana please enter first name halkan aynu bedelnaa marka f name oo kale aynu ka dhigaynaa silkan haddaynu soo koobiyeysano l name aynu u bixino kabacdi telephone numberkan aan weydiino please enter your okay macluumaadka waan weydiinay kabacdi waxaan ku ridaynaa listigan waxaa inoogu jira headerkii waxaan oranaynaa friends list dot append listii kaleenu samaysanaynaa waxaan dhex gelinaynaa markaa f namekii l namekii iyo telefonkii
marka listigaas wuu inoo soconayaa ilaa uu qofku marka waynan u ogolaanaa qofku inuu ka bixi karo while loopka waxaan odhanaynaa matalan action yes or no continue yes or no marka haddii qofku markaa dhaho no inaan while loopka ka baxanaa if action dot lower aanan loobin is equal to marka yes hadduu yahay while loopku ku noqonayaa laakiinse no hadduu dhaho break baynu odhanaynaa okay halkan waxaynu markaa collect garaynay listigii si aad u aragtaan listig waan print garaynaynaa marka hore waxaan kaloo samaynaynaa listigii ayaan ku save garaynaynaa CSV filekii marka halkan aan kusii qoray marka hore waxaanu soo barannay haddaynu haysanno nested list waa inaynu isticmaalnaa right rows inta kale waa isku mid friendska waxaanu bedelaynaa marka friends.csv file ayuu noo samaynayaa waxaynu ku qoraynaa marka friends listigii oo listigii aynu soo samaysanay halkan ah ayaynu ku save garaynaynaa okay marka halkan waxaa noo soo bixi doona hadhowto file friends.csv haddaan run dhahno enter first name last name number continue yes number continue yes saddex qof aynu gelinaynaa do you wanna continue no okay listigii waad aragtaan nested listigii halkaan ku print gareeyey laakiinse muhiimaddu waxa weeyaan filekii maynoo sameeyey haddaynu tagno filekii uu sameeyey okay spaceka haddaad rabta inaad ka saartaan marka sanadii hore u soo aragnay waxaad isticmaalaysaan halkan inaad dhahdaan markaa halkaa inaad ku dartaan delimiter new line empty halkaa inaad ka dhigtaan sana hore usoo barannay hadaynu dhahno test run first name waxbaan iska gelinaynaa last name telephone number yes continue another name last name telephone number no waxaan arkaynaa marka haddaynu ku noqono friends.csv inuu ka saaray laymankii emptiga ahaa halkaas ku dhammaada casharkan waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu